dhismahan qarsoon ee ku yaala qaybta ugu fog waddanka ugu go'doonsan Yurub wuxuu ka mid yahay hoteelada ugu qaalisan qaaradda Yurub oo dhan sidoo kale meesha uu ku yaalo in hotel raaxo laga dhiso wax macnaama sameynaysa haddana sidaas ay tahay bilyaneer iyo dad badan oo caan ah ayaa ku bixiya lacag tiro badan si ay u degaan hoteelkan Justin Bieber wuxuu ku sheegay dalxiiska uu meeshan Debler Farm ku tagay safarkiisa ugu wanaagsan noloshiisa laakiin maxay tahay sababta hotel ku yaala meel cidla ah gaar ahaan Iceland loogu bixinayo lacagaha intaas leeg maanta waxaan booqanayaa oo aan degayaa hoteelkan qarsoodiga ah iyadoo hadafkaygu yahay inaan ka jawaabo hal su'aal maxay ku qarinayaan meeshan hadda waxaan saaranahay diyaarad socda Reykjavik oo ah caasimadda Iceland markaan halka gaadho waxaan kiraysan doonaa gaari kaas oo aan u sii wadi doono 6 saacadood dhanka waqooyi si aan u gaadho hoteelka waa 6 saacadood. Now I know what you're thinking. There must be an easy way to get to this hotel. waxaa jira garoon diyaaradeed oo 45 daqiiqo u jira hoteelka laakiin waa garoon aad u yar duulimaadiyadiisuna way xadidan yihiin wuxuu fiican yahay haddaad diyaarad gaar leedahay sida darteed waa inaan gaari ka haysano. Oh yeah, now we're talking road trip time. Let's go. We are on the road, baby. maxaad qarinaysaa hoteelow maxaad qarinaysaa wax ka yar 6 saacadood ayaa hadda ka hadhay si aan u gaadho hoteelka gaarigan kama xumi sababtoo ah safarkan dheer aan gelayo wuxuu iga caawinayaa inaan arko Iceland badankeeda anigoo dhex maraya halkii aan diyaarad ka raaci lahaa. Iceland sida la sheego waa mid ka mid ah wadamada ugu quruxda badan adduunka oo dhan marka waxay noo noqon doontaa mid special ah. dhammaadka safarkan waxaan soo dhex marnay Iceland oo dhan balse ujeedadeenu waa inaan soo ogaano waxa hoteelkan yahay sababta uu halkaas u yaalo iyo cidda meeshan ka dhistay. Random question. Have you ever heard of Depler Farm? Depler Farm. No? Okay. What do you hide in Depler Farm? In a western town, a dead-end world, the eastern boys and western girls, West End girls. Wow. Are we making good progress? wax ka yar 2 saacadood ayaa hadda inooga dhiman inaan gaadhno hoteelka qarsoodiga ah. Don't tell anyone. waxa qosol ahba inaan gaadhiso hotel 6 saacadood halka qaar ka mid ah dadka halkan imaada helicopter lagaga keenay airportka haddaba anigu waxaan karaystay inaan 2 habeen joogo hoteelkan. xilliyadan oo kale ugu yaraan waxa qasab inaad 3 maalmood joogto halkan laakiin 3 maalmood aad bay qaali u tahay way ii naxariisteen baa aniga hadda ii ogolaadeen inaan 2 habeen joogo laakiin weli waxaan ka fikrayaaba meeshan cidlada ah maxay qasab uga dhigeen ugu yaraan 3 habeen in la joogo markasta oo aan sii socono gawaadhida iyo baabuurtu way sii yaraanayeen waan sii fogaanaynaa waxaan ka baqayaaba in waxaan iskaam inagu noqdo. waaw runtii meel fog baynu soo gaadhnay waxaan sii yaqaansaday in waxaan feeg yahay laakiin ka sheekaya bal hoteelka ugu go'doonsan tani waaba waali iyaa keena fikradda in hotel halkan laga dhiso waa waali laakiin waan ka helay kadib haddaba 6 saacadood oon gaadhi soo waday waxaan gaadhay goobta ugu go'doonsan Iceland waxaanan hadda ku socdaa waddada tagta hoteelka. This is a cool adventure. Come on, let's go. balse war adigoo kaliya halkan ku nool kaasina gurigaaga yahay jaar aad la hadashaa ma jirayo waayo jaarba kuma agdegana waxaan u malaynayay in taayirku iyo fadhiisanayo oo aanan soo gaari doonin hoteelka laakiin si wanaag waan soo gaadhay waxaan u malaynayaa inaan arko hoteelka sidaa qarsoodi uma ahaba markaad aragto. This is crazy. Here we go. Oh, I've stalled it. Here we are. waxay soo dhaweeyay shaqaale wanaagsan oo iigu qaaday alaabtayda qolkayga imika sidaad arkaysaan waxaan ku suganahay qolka hoteelka waxay ii sheegeen in badanka aanay tan samayn laakiin jawigu aad u fiican yahay marka waxay weydiiyeen inaan doonayo helicopter inaan barafka ku soo dhex maro hadda waa 4 galabnimo laakiin maxaan ku diidayaaba inaan mariyo saaxiibayaal barafka aan helicopter ku soo dhex marno iminkaan fahmayba sababta Justin Bieber hoteelkan u amaanayay. Well, before the FBI, sitting in a nest of Batman, with good bottles firing high.
On my markii ugu horreysay aan isku dayay bahashan barafka 3 jeer baan dhacay waxaan filayay in hoteelka dib laygu soo celin doono waayo aad baan u xumaa gaar ahaan marka la eego raggaan la socday oo ciyaartan aad ugu wanaagsanaa laakiin si wanaag dhowrkii jeer ugu horreeyay markaan dhacay waxaan fahmay sida loo sameynayo jawiga halkaa wax kale oo ahaa When I heard this woman sing a song, a bit of fun, a fast city over my eyes, my temperature started to rise. She was a long, cool woman in a black dress. What the? Well, sometimes they sort of describe people as the mayonnaise in the bologna sandwich. kooxdan aan la socda aad bay wanaagsan yihiin waayo waa 3 qof oo Mareykan ah oo is yaqaan waxayna u muuqdaan inay si fiican ula haystaan macalinka How was it? hoteelka in halkan laga dhisaa waxay albaabada u furaysaa activity-yadan kala duwan ee badan sanadka oo dhan hoteelkan oo magaalo ku yaala dhab ahaantii wax macnaa ma samayn lahayn taasina waxaa sii dheer muuqaalada quruxda badan ee dabiiciga ah ee halkani leedahay si kastaba ahaatee kadib 4 saacadood oo barafka aan ku dhex jirnay waxaan dib ugu soo noqonnay hoteelka si aan u cashayno That might have been perfect. Oh, stop it. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa duuliyaha helikobtarkayga oo si cajiiba nagu waday helikobtarta Thanks, Jimmy. intaa kadib saaxiibadayda cusub ayaan la casheeyey laakiin idima tusi karo waayo taleefankaygu uu qalalay barafka kadib saaxiib yaal iminka waa 11 habeenimo haddana sidaad aragtaan mugdi ma aha waxaa jira wax badan oo aanan weli idinka barin hoteelkan xataa qolkayga weli idimaan tusin berri maalin cajiibay noqon doontaa waa inoo berri okay maalintii labaad waxay noogu bilaabantay sinjibiil iyo saliid saytuun ma garanayo yaa keenay fikradda labadan in la isku daro tanina waa roodhi afakaadho leh iyo kafeegan cajiibka ah ugu dambeyn haddaba waxaa la gaadhay wakhtiga aan qolkayga idinkala tusi lahaa dib baan u soo gelayaa qolka si aan iskaga dhiga mid yaaban oo qolka ka helay inkastoo aan xalay halkan seexday okay haddaba qolka waxaa taalla sariir aad u raaxo badan 15 daqiiqo ayay u qaadatay inaan sariirtan dib ugu ekaysiiyo sidaan ugu soo galay waan isku dayay laakiin sidii kamaan dhigin Wow. I didn't even notice this. waxaa taalla tallaagadan ay ku jiraan cabitaanadu kadibna waxaan haysanaa meeshan kafeega barkimooyin iyo bustayaal dheeri ah haddaad rabto inaad issii diiriso halkan waa meesha wax lagu rito iyo weliba daaqadan fiyuga wanaagsan leh waxaad kaloo haysataa kursi aad ku fadhiisato meel aad alaabtaada saarato meel aad ku shaqayso oo aad ku daawato tv-ga fiyo kaloo cajiiba iyo iftiin dabiici ah qolka oo dhan kanna waa bathroomka waxaad ka helaysaa meesha wejiga lagu dhaqdo iyo muraayad hallow halkan heerkulka iyo iftiinka ayaad ka hagaajinaysaa kadib waxaan haysanaa shaawarkii ugu weyn ayaan weligay arko uumi ayaad shidan kartaa sidoo kale qolku waa intaas saaxiibayaal waa qol fiican runtii wax kasta oo aad u baahantay uu leeyahay iyagoo tayadooda aad u sarraysa weliba laakiin sidaan filaya meelaha hoteelkan lagu doortay qolalka ma aha waxaaba loogu talagalay inaad wakhti badan ku qaadan qolkaaga qaybaha kale ee hoteelka iyo activitiyada bannaanka ayaa ka muhiimsan hadda waxaynu sii wadi doonaa qaybaha kale ee adventureka bilowga maalinta waxaa la ii weydiiyey activitiyada aan doonaya inaan sameeyo inta badan martidu waxay doorteen helikobtarta inay mar kale raacaan laakiin anigu waan diiday waxaan doonayay inaan sameeyo activitiyo badan oo kala duwan intaan halkan joogo waayo anigu dadkaa lama midihi meesha fiidiyooba ka duubanayaa activitigii ugu horreeyey ee maalintu waa baaskiil koronto ku shaqaynaya halkaas ayaan baaskiiladan ku tegi doonaa minka ayaan sii raaci doonaa Did you say something about a ghost farm? Ghost farm further up the valley up there. It's like this, but with a bedroom attached to it, and it's an old abandoned farm that we renovated in the middle of nowhere. And there's ghosts. No. Is this a hot tub? Yeah. No way. With that view. wax kasta waxay u muuqdaan kuwo dhab ah waa meel sir ah idima tusi karo waxa ku jira waan iska kaftamayey waa meel wax lagu kaydiyo Enjoy the view. When's your favourite season? All of them. All of them. All of them. Even in the winter when it's it's bleak and it's dark, it's still nice, and you get days like this, bluebird days like this. Yeah. All of them really. It was pretty clear that Mark loved his job. minka wuxuu hadda ii sheegay arrin aad u cajiiba oo ku saabsan guryo badan oo halkan ku yaala marka dadku doonaan inay guri ka dhistaan halkan ama hanti dhulkooda waxaa laga baadhaa biyo kulul oo haddii ay jiraan biyo kulul oo dhex maraya hantidaada hoos ayaad u qodi kartaa oo waad isticmaali kartaa biyahaas kulul si aad u diiriso gurigaaga waxaana tusaale u ah guriga halkan iyo meeshan kulul waana sababta dhammaan biyaha halkan ka soo baxaya ay u qiiqayaan markaa qorshaha maantu waa inaan ka haysano baaskiiladan korontada oo aan tagno ilaa dooxada waxaan dareemayaa inaan aad u nasiib badanahay maadaama waan jooga Iceland oo duubaya muuqaal YouTube ah Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. Oh, Western town, a dead end world. Eastern boys, Western girls.
West End girls. kan waa nooca faraska ee Iceland waa sida gawadhida oo kale dad badan waxay ugu yeedhaan ponies They're like a four-wheel drive, so a lot of people call them ponies. Technically, they are a horse. dhismaha sare waa meesha qaar badan oo shaqaalaha ay ku nool yihiin aniga iyo Mick waxaan ku dhownahay stuudiyaha wax lagu duubo waxyaabo kalena halkaa way yaalaan meeshii biyaha kulul iyo qaar kaloo badan oo waxaan samayn doonaa sidoo kale kayak badeed aniga iyo Mick waan wada sheekaysanay waxaan ka wada hadalnay qaar ka mid ah waxyaabaha aan ka helay meeshan maxay tahay qaybta aad ugu jeceshahay halkan waa maalmahan oo kale sida maanta miyayna ahayn waxay xasuuseebeen maanta ay jimco tahay waayo maalmuhu way ka kala lumayaan markaad halkan joogto cirka bluega ee qurxoon barafka baddu way qurxoon tahay oo ay fidsan tahay waxaan qoray wax yaroo freestyle ah ma ku duubi karaa stuudiyaha haa waad ku duubi kartaa waa kan stuudiyaha duubistu marka wixii kala tusay stuudiyaha waxay ahayd meel habaysan waxa yaalay qalabka duubista ee casriga ah oo dhan You play any instruments? No. Do you reckon we could start our own band? marka wixii tusay dhammaan qolalka meesha sida meesha biyaha ee kulul iyo soonada oo bannaanka ku taalla iyo sidoo kale fiyugan cajiibka ah intaa kadib waxaan cunnay qado aad u wanaagsan oo lanoo sii diyaariyey kubaddan ayaanan iska ciyaaray ka hor intaanan u gudbin activity-ga xiga okay Mick maxaan hadda qabanaynaa hadda waxaan ku dhex samaynaynaa kayak badeed maalintan aadka u quruxda badan ma doonaysaa inaad aragto wax dabaylahay ma jirto waxay nagu hareeraysan baraf iyo buuro baraf ah dabaylna ma jirto waxaa laga yaabaa inaad aragto xayawaan duurjoog ah oo aad ku qosasho kadibna ila kaftanto tani laakiin waaba shaqadaada soo maaha tani waa waxaan samaynahaa kayakinkan 20 sano ayaad samaynaysay soo maaha haa waa meelaha saaxiib yaal ninkan waa ninka aad jeclaan lahayd inaad raacdo markaad kayak samaynaysa markii ugu horreysay okay ina Maria Next stop, Greenland. haddaba kayakinku aad buu u deganaa kuma dhow wadooyin waaweyn tuulooyin ama magaalooyin keliya buuro iyo xayawaanada badda ayuunbaad arkaysaa okay hadda waxaan soo dhex marnay xeebta oo dhan waxaanan kusoo laabanay xilliga Have you got any kayaking jokes, Mick? No, I can think of. You haven't? You've been doing it 20 years. This one's always in here. Seal. It's called Dave. Yeah, Dave! You got a name for him? kayakinka markaan ka soo baxnay waxaan dhex galay biyahan kulul ee geothermalka ah ka hor intaanan dib ugu noqon hoteelka meesha Debler Farm waxaad ka helaysaa meelo badan oo dabka lagu shido oo sidan oo kala markii aanu soo soconay aan dib ugu soo laabanaynay hoteelka marka waxaan u sheegay inaan kafee u xaraaradoonayo isla markaan soo gaadhay hoteelkana waxaa la ii sii diyaariyeyba kafeegii kadib markaan u sheegay marka wuxuu la xiriiray shaqaalaha hoteelka si ay igu sii diyaariyaan markii aan soo laabto waxay ahayd customer service aan caadi ahayn saaxiib yaal waxaan ogaaday inaan qalad sameeyey ilaa maanta saaxiibkeen Mark waxaan ugu wacayay magac qaldan Mick ayaan ku lahaa anigoo aan isogeyn magaciisuna waa Mark He was here. He's about somewhere. Oh, he's over there. Hi. Mark, I'm about to just get a high five for the video and say sorry for calling you Mick all day. It was a great day. safarkii waan ka soo laabanay hoteelku xoogaa uu degan yahay hadda ina Maryaan idinkala taso hoteelka halkani waa receptionkii iyo fiyuga bannaanka Sorry. halkan waa meesha cuntada qof walba halkan buu fadhiistaa oo cuntada lagu wada cunaa waana waxyaabaha ugu cajiibsan hoteelkan aad bay wanaagsan tahay in la isdhex galo halkan kalena waa meesha fiyuga ee la fadhiisto fiyugan oo kale anigu maalintii oo dhan baan fadhiyi lahaa oo aan daawan lahaa marka qaybtani waa qaybta guud ee soo dhaweynta ama qaybta ugu weyn hoteelka ee loogu talagalay nasashada sidoo kale miiskan buulka ayaa ku yaala iyo kan kubadda cagta iyo ka taniska xagga sarna waa meesha ay kooxu wax ku soo bandhigaan sidaasaan filayaa kadibna waxa ku sii yaala meel la fadhiisto wanaagsan waxaan u maleynayaa in halkani tahay meesha ugu quruxda badan dunida ee lagu shaqeeyo meeshan aad bay weyn tahay sidoo kale halkan kalena way jirtaa mar kale waa qol kale oo weyn oo dad badan loogu talagalay TV weyn ma xasuusto ciyaartan magaceeda halkanina waa gym No, tough. sidoo kale qolkan kalena wuu ku yaalaa kadibna qaybta hoose waxaa ku yaala qolal masaaj qolal dhar bedelasho iyo barkad kale oo kulul oo geothermal ah sauna qaboojiye iyo meelo la fadhiisto oo wanaagsan oo aad ku nasanayso si aad ugu raaxaysato fiyuga runtii waan jeclahay fiyuyadan hoteelku meelo badan oo kale ayuu leeyahay saacado badan ayay nagu qaadanaysaa haddaan idin wada tuso waxa kale oo yaab leh oo hoteelkan ku saabsani waa sababta loogu bixiyey Debler Farm waayo waxay ahayd beero laga soo bilaabo qarnigii 15 ilaa 2016 waxay ahayd beero ido oo shaqeeya xaqiiqo qosol oo ku saabsan deegaankani waa in iduhu ka badan yihiin dadka laba jibeer laakiin runtii ilaa imka maanan arag hal neef oo ida ah intaan safarkan ku jiray iduhu maya talow yaa ii sheega bal West End town, a dead end world. The East End boys
boys and Western girls. okay waxaan kusoo noqday qolka hoteelka hadda waxaan ka jawaabi doonaa dhowr su'aalood oo aad iska weydiinaysaan hoteelkan ugu horreyn waa imisa lacagta hoteelku waxaan ku sugnaa qolka ugu jaban hoteelka oo qiimihiisu ahaa 5,000 habeenkii waa $5,000 sidoo kale ugu yaraan 3 habeen ayaa la joogaa nasiib wanaag waxay ii ogolaadeen 2 habeen inaan ku qaato halkan waayo maan awoodin inaan bixiyo lacagta 3 habeen dadka lacagta haysta hoteelka gebigiisa way kiraystaan waa 13 qol waa adeeg ay bixiyaan oo 13 qolba waad kiraysan kartaa waxaan u malaynayaa inay ka badan tahay $100,000 habeenkii si aad u wada kiraysato qolalka aad baan ugu faraxsanaa inaan halkan joogo waxay ahayd experience cajiib halkan joogitaankeedu activity-yada la yaab kale aad samayn karto iyo sida fiican ee shaqaalaha iyo martidu ay u wanaagsan yihiin mark wuxuu wax yar ka hor iiga sheekaynayay heerarka ay shaqaaluhu halkan shaqadooda ugu dadaalaan si ay uga dhigaan experience-ka mid aad u xiiso leh iyo sida ay daaha dabadiisa wax uga wadaan iyagoo isticmaala gruubyo ay si joogta uga wada hadlaan xitaa waxay leeyihiin application gaar ah iyagoo hubinaya halka ay martidu ku sugan yihiin waxayna rabaan keliya inay hubiyaan in dhammaan martida loogu adeego oo ay helaan adeega lacagta intaa leg ay ka bixiyeen waxaa sidoo kale halkan Debrafarm ay leedahay ku dhowaad 70 qof oo shaqaale ah hadda halkan waxaa degan dadka yar 15 qof taasoo la micnaaha 4 shaqaale ayaa u shaqaynaya qof kasta oo marti ah waa ka heerka customer service-ka ee ka dhigaya meeshan mid aad cajiib ah 4 qofba qofkiiba u shaqaynaya imika Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. waxay ahayd haddaba habeenkayga ugu dambeeyey Debrafarm iyo waqtiga cashada mar kale marqan ayaan ku bilaabaynaa cashada kadib cuntadan kale iyo shukulaatada oo aan ka daba cunayno dibadda ayaan uga soo yaro baxay cashada si aan u eego qoraxda sii dhacaysa cashadu waa mid aad u wanaagsan waxa cajiiba sida dadku waxay iskula cunayaan oo dhammaan la wada fadhiisanayo miiskan cuntada ee diiran ee weliba la wada sheekaysanayo dad aad u fiican ayaad la kulmaysaa sidoo kale goobta hoteelkan uu ku yaallo oo dooxadan quruxda badan ah taasoo maylis u jirta magaalooyinka casriga ah ma aha mid la iska indhatiri karo eeg bal halkan waxay ku dhowdahay saqda dhexe qoraxduna way sii dhacaysaa saaxiib yaal hadda waan sii seexanayaa laakiin maalintu weli may dhammaan waxay sugaya activity xiiso leh oo subaxa la samaynayo meeshan waa cajiib habeen wanaagsan saaxiib yaal subax wanaagsan horaan u soo kacay marka waxaan hore u helay quraacdan aan wada sheekaysana maadaama oo aan dad badan soo kicin weli qofna ma joogo marka quraacdan waxaan haysanaa dhammaan roodhidan wanaagsan fruitiskan juicekan iyo cabitaanka sinjibiisha iyo saliidda beerka inta badan intii halkan aan joogno cuntooyinku waa cuntooyin lagu soo dooray laakiin quraacda adaa ka dooran kara menu-ga kani waa kursiga aan mar walba fadhiisan jiray ma garanayo laakiin waan ka helay kursigan weliba kafeegu halkan waa kafeega ugu fiicnaa abid ee aan cabo I don't know what you do. Yeah, they're really good. Thank you very much. It's alright. balay quraacdan wow okay guys waxaan halkan la joogaa William waa mid ka mid ah shaqaalaha Debrafarm saaxiib waxaan ku hayaa su'aalo xiiso leh oo aan ku weydiinayo okay way ugu horreyn xageed ka timid waxaan ka soo jeedaa Quebec asal ahaan sax goormaad soo guurtay halkan waxay ahayd sanad iyo badh ka hor xaaskaygu waa Icelandic taasina waa sababta aan ugu soo guuray halkan halkan baad soo guurtay waa sax su-aasha xigta halkan Debrafarm waxay ahayd beer idaha lagu xanaaneeyo soo maaha weli intaad halkan joogtay ma aragtay wax idaa oo soo noqday oo u maleeyay in beertooda ay weli tahay meeshu ma ii maan arag No. waa maxay waxa ugu badan inaad ku raaxaysato markaad halkan ka shaqaynayso waxaan filayaa howlaha kala duwan aan qabanay inay tahay ama activity-yada kala duwan dabcan markaad ku shaqaynayso gaar ahaan ee dadkaad hagayso marar badan waxaad samaynaysaa waxyaabo soo noqnoqda dabcan runtaan u saaxiib aad baan uga helay sidaad creative-ka u tihiin ee aad u danaynaysaan waxay martidu ay doonayso badanka waxaan isku daynaa mar walba inaan activity badan isku xidhiidhino si hawshaan qabanayna u noqoto mid wanaagsan halkii ka noqon lahayd guidance iska caadiya oon dadka meelaha soo kala tustusayno haddaba ugu dambeyn su-aashaan weydiinaya waxa weeye wax fariin aad u diri lahayd dunida ma jirtaa keliya waxaan ka odhan lahaa maalin walba waxaad ku raaxaysataa sida ay maalintaadii ugu dambaysay ay tahay qof walbana si naxariis leh oo wanaagsan ula dhaqan waa sax waa cajiib waan ka helay runtii aad baad mahadsanta saaxiib inaan kula kulmo inaan ku faraxsanahay haddaba wada sheekaysigaa yar kadib waxaan u baxay activity-gii ugu dambeeyey ee intaan halkan joogay aan soo qabanayay waa nibri daawasho Do you think we'll see any whales? waa hagaag waxaan ku jirnaa safarka daawashada nibriyada eeg doonidu way socotaa waan baxnay waxaan u baxaynaa badda tani waa halka ay doonida ka wadaan eeg yaa wada cidna tani masiif beetalow waxaan u dhaaqnay dhanka gacanka waqti dheer baan soconnay laakiin waxba maanu arkin qaar badan oo naga midoway ka quusteenba inaan nibira arkayno qof walba wuxuu eegayay xagga hore laakiin anigu waxaan eegayay xagga dambe waa intaasoon mid gadaal ka arko okay halkan baan joognaa xaggan baan doonta dhigannay waa la damiyey injiinka Over the show. Oh my days, no way. Western town, a dead end world.
the eastern boys and western girls. saaxiib yaal ma rumaysan karo waxaan halkan uga jeedo wax yar oo dhowr mitir ah ayaan u jiraa nibiriga hamburga oo 50 fiida bal eeg waa kaase Iceland runtii waa wax kale waxaan ku jirnaa safarka nibiryada Western town, a dead end world. The eastern boys. waxaan halkan kula kulmay saaxiibo kani waa Craig Tennessee America ay ka yimaadeen waxaan ku wada jirnaa safarka nibiryada bal ka waran waa sidee safarka nibiryadu maanta oo dhan waxaan islahaaba ma arkaysaa nibiryada Amazing. This one got so close. We got to see him really close. Close up. Yeah. This is the 100% whale company, and they kept their record going. It was a kadib safarkan waxaan la qadeeyay Craig iyo Ginger kadibna waxaan ku noqday hoteelka waxaan yar ciyaaray ciyaartaas sidaan filayay uma fududayn ugu dambeynna jawaabta su'aashii muxuu qarinayay hoteelkan waxay noqotay waxba anigu waxba ma arkin adu wax ma aragtay haddaba saaxiib ilaa halkan haddii aad muuqaalka soo gaadheen waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan sidoo kale haddii markii ugu horreysay aad daawanaysa ay tahayna subscribe-ta noo saara waa inoo muuqaalada xiga insha allah aad baad mahadsantihiin Western town, a dead end world. The eastern Western town, a dead end world. The eastern Western town, a dead end world.